بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada cashirkeena toddobaad oo aan maanta kaga hadlayno cudurka macaanka ama sokorowga midda ugu horeysa horta haddii lagu yiraahdo waxa laga helay xanuunka macaanka ama sokorowga macnaheedu waxa waaye sokorta kacsan ayaa laga hadlayaa dad badan ayaa arrintan qalad u fahma oo yiraahda markii loo sheego in sokor laga helay sokorta kacda miya mise mid dhacda noocee laga helay badanaa diabetes ama macaan ama sokorow ugu mar walba waa sokorta kacda midda dhacda insha Allah cashir gooni ayaa wada doona sokorta kacda waxa keenayo waxa waaye jirka oo awood u lahayn inuu ka faa'iideysto sokorta dhiigga ku jirta taas oo ka dhalatay pancreaska ama ganaca qanjirka loo yaqaano oo soo deeya hormoonka insulinka ah oo cilad ku timid ciladaas oo noqon karto inuusan jirinba hormoonka insulinka ama inuusan soo deynin insulin jirka ku filan ama insulinka laftirkiisa inuusan jirka uusan ka faa'iideysan karin taas oo loo yaqaano insulin resistance oo ah jirkii oo adkaysi u yeeshay waxtarkii insulinka sokorta da walba way ku dhici kartaa caruur rag dumar dhalinyaro sokorta badanaa waxaa loo kala qaybiyaa qaybo badan ay leedahay laakiin waxa ugu muhiimsan ilaa 4 mid ugu horeysa waxa waaye sokorta loo yaqaano sokorta oo bilowga ah ama marxaladda ka horeyso intaysan sokor noqon taas oo loo yaqaano pre-diabetic marxaladdan dad badan ayaa la nool taas oo macnaheedu ah qofku ma uusan gaarin heer uu daawo la siiyo laakiin sokortiisa si fiican uma xakameysna sida qofka caadiga ah qofkaas talooyin la siiyaa ku saabsan xagga cuntada iyo inuu isbedel ku sameeyo qaab nololeedkiisa si uu sokortaas u xakameeyo ugana hortago inay isku bedesho sokor caadi ah waxaa kaloo jiro sokorta nooc loo yaqaan type 1 taas oo ah sokorta ka dhalatay qanjirka pancreaska oo aanan insulin soo deyneynin waana sababta badanaa dadka ciladaas lagu arko badanaa loo siiyo insulin aysan daawooyinka waxba uga taraynin fikrad qaldan ayaa jirta oo dhahaysa in badanaa type 1 carruurta ay ku dhacdaa dadka waaweyn type 2 ku dhacdo taas sax maahan type 1 carruurta ay u badan tahay laakiin dadka waaweyn laftirkoodana type 1 way ku dhici kartaa sidoo kale type 2 carruurta ku dhacdana waan aragnay laakiin waxay u badan tahay dadka waaweyn saddexda markii laga soo gudbo waxaa jiro sokorta uureyda ama nooc loo yaqaano gestational diabetes sokortaas badanaa waxaa lagu arkaa hooyooyinka uurka leh markay dhalaan ay umusha ka baxaan kadibna sokorta waa laga waayaa taasna waa nooc ka mid ah sokorta waxaana la sheegaa hooyooyinka sokortaasi ku dhacdo oo uurka in waxa akhiiran ay dhici karto inay sokor caadi u dambeyso khaasatan nooc loo yaqaano type 2 sokorta marka astaamaheeda maxaa ka mid ah tan iyadana muhiim waa inaad si fiican u dhegeysataan maxaa fikrado badan oo qaldan ayaa jira waxaa arkaysaa dad dhahayo ani sokor ma qabi karo maxaa yeelay kaadi badan ma lihi oon badan ma lihi calaamadahaas waa calaamadaha badanaa lagu yaqaan sokorta laakiin siyaabo badan ayay ku imaan kartaa oonka badan iyo kaadida badan miisaanku kaa luma indhaha oo caad kaa fuula oo aragga si fiican wax u arki karin lugaha gacmaha kabuubyo ka dareentid tabardarri ziyaada ah oo aadan iskugu ogaan jirin oon badan afka ku qallalan carabka ku qallalan murqihii uu ku daalayo waxyaabahaas oo dhan waa calaamado lagu garto sokorta mararka qaar haddii aad qabtid sokorta type 1 waxaa laga yaabaa waxaas dhan inaadan dareeminba oo aad ku timaadid xaalad oo ah isku dhexyaac qofkii oo sidii inuu komo ku jiro camal hurdo dheer iska galayo taasoo dhici karto inay isku bedesho xaaladda emergency ee loo yaqaano DKA oo ah inuu qofka oo komo u galo sokorta darteed mararka qaar dadka type 2 qaba waxaa laga yaabaa in calaamadahaas aysan si degdeg uga soo muuqan oo ay dhici karto bilooyin inay jirkooda sokorta kusoo jirto oo tartiib tartiib calaamadaha ugu soo kordhayaan uusan ku baraarugsaneyn oo ay dhici karto inuu baaritaan check up u yimaado xanuuno kale inay dhici karto in sokor laga helo marka waa muhiim haddii aad isku aragtid calaamadahaas qaar ka mid ah daalba ha ahaado miisaankaagu sii socdo oon badan indhaha araggaagu daciifay lugihii gacmihii kabuubyo ka saaran waa muhiim inaad waxyaabaha iska baaraysid aad ku tirtid sokorta khaasatan haddii ay familkaaga ama qoyskaaga qof ka mid ah uu qabo xanuunka sokorta sokorta haddaan la daaweyn marka maxay keeni kartaa nasiib xumo dad badan oo bulshadeena ka mid ah sokorta uma aaminsan inay tahay cudur khatar ah sokorta xanuuno badan ayaa kusoo hoos dhuuman kara arag ayay kaa saameyn kartaa indhaha caad ayay saari kartaa ama indhaha aad beeli kartaa sidoo kale keliyaha ayay fadhiisi kartaa wadnaha ayay saameyn kartaa oo waxay keeni kartaa in xididada wadnaha xirmaan oo qofka wadna qabad ayuu yeelan karaa heart attack sidoo kale neerfaha ayay saameysaa oo lugaha ay tabarta ka qaadi kartaa
jirka meelo badan oo kamid ah ay saameysaa. Ilkahay saameyn kartaa, cirridkay saameyn kartaa, xididada dhiiggay saameyn kartaa. Xanuunadan kolestaroolka la yiraahdo dadka sokorta qaba aad ayaa loogu arkaa. Marka waa muhiim in dhibaatooyinkaas si looga hortago in waxa waaye xanuunka sokorta haddii lagugu sheego inaad daawo qaadatid oo talada dhakhtarka ay yeeshid. Marka fadlan haddii daawo lagugu qoro xanuunkaas lagaa helo, daawadaada qaado. Haddii aad ka shakisantay inaad sokor qabtid, waa isbaari kartaa. Baaritaanada iyo siyaabaha loo hubiyo iyo goorka daawada la bilaabay insha Allah waxaan ka hadli doonaa casharka soo socda iyo talooyin badan oo ku saabsan xagga cuntada ah. Fadlan waxaa laga yaabaa inay su'aalooyin adiga kugu taagan inay jiraan. qaybta commentiska ee videogan fadlan ku qor si aan ugu soo qaato casharka soo socdo. waana mahadsantihiin.